safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Yamamoto oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xarunta safaaradda ee magaalada Muqdisho ayuu sheegay in toddobaadkan uu booqday shirkado Soomaali ah iyo milkiilayaal ka faa'iideysanaya taageerada Mareykanka ee Soomaaliya taas oo la soo mariyay barnaamijka Geel. Mareykanka ayaa ballan qaaday in uu bixinayo 74 milyan oo lagu maalgelinayo horumarinta dhaqaalaha iyo fursadaha shaqo abuurka. Waxa uu sheegay in Mareykanka uu taageerayo kuna faraxsan yahay abuuridda fursadaha shaqo isla markaasina ay tahay wax lagu farxo in Soomaaliya ay tahay meel u furan xagga ganacsiga. Waxa uu ka hadlay kordhinta howlaha lagu caawinayo Soomaaliya iyada oo loo marayo hay'adda kaalmooyinka Mareykanka ee USAID. So the main point is that the United States waxa ugu muhiimsan ayaa ah in Mareykanku uu dalka ku soo noqday uuna kordhiyay howlgallada lagu caawinayo Soomaaliya iyada oo loo marayo hay'adda kaalmooyinka Mareykanka ee USAID. waxaan diiradda saaraynaa inaan aragno horumar degdeg ah ee kobaca dhaqaalaha Soomaaliya halkaasi oo aan door wanaagsan ka qaadan karno oo ku aadan kobaca dhaqaalaha dhinacyada kalluumaysiga, beeraha iyo meelo kale. waxaan nahay waddan caawinaya dowladdiina iyo dadkiina maxaa yeelay waxaan leenahay xiriir wanaagsan. sidoo kale dad badan oo Soomaali ah ayaa jooga Mareykanka. waxaan leenahay isdhexgal. waxaan doonaynaa inaan aragno guusha Soomaaliya. We want to demonstrate that we're doing something for the future Somalia, which will help not only the stability and economy of all of Africa and support your neighbors, but then vice versa, your neighbors will be supporting you and we too will be supporting you, and we'll have a not only regional integration but closer integration with the United States and your country. So that's really our main issue, that we're here to stay, and we want to see Somalia succeed. mar uu ka hadlayay arrimaha ku aadan fursadaha kalluumaysiga ee Soomaaliya ayuu safiirku sheegay in ay wali arrimahaasi ay hooseeyaan. And that's the good question is once you give the fishermen and the farmers an opportunity, fursadaha kalluumaysiga iyo dhinaca beeraha si ay u ballaariyaan fursadaha ay haystaan dhinaca kalluumaysiga wali waa mid hooseysa. soo jalaabashada kalluumaysiga iyo qaboojintooda kadibna suuqa la keeno. dhoofinta kalluumaysiga warshadaha ee bariga dhexe iyo wadamada dariska way ballaaranayaan. mar kasta oo ay kalluumaysiga lacaga badan sameeyaan waa mar waliba oo ay awoodaan inay ballaariyaan qiimaha Soomaaliya ay leedahay. So what's doing is expanding your ability to catch fish, hold it and expand it and export it. And so we're looking at exports from Somalia in fishing industries to the Middle East, to neighboring countries, and it's expanding because of the refrigeration programs that USAID is doing. And it's at our expense because this is also in our national interest. The more money that the fishermen in Somalia makes, the more ability they can to expand the wealth of Somalia. haweenka Soomaaliyeed ayuu sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid tahay in aysan fursad u helin dhaqaalo. si loo jabiyo gidaaradaasi hortaagan haweenka ayuu sheegay safiirka in barnaamijka Geel uu heli doono xal ku aadan sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinkaasi. waxaa kale oo uu sheegay in barnaamijka Geel uu taageero mid ka mid ah shirkadaha hogaamiya horumarinta beeraha oo ay haween hogaamiyaan. dhinaca kale agaasimaha howlgalka hay'adda kaalmooyinka Mareykanka ee USAID Jeff Becken ayaa sheegay inay isugu yeeraan deeq-bixiyaasha si ay dhaqaale ugu bixiyaan xalinta dhibaatooyinka ku horgudban dhinacyada beeraha, kalluumaysiga, xoolaha iyo fursadaha shaqo abuurka. What we're trying to do is harness waxaan rabno inaan samayno ayaa awoodda waxyaha gaarka loo leeyahay maxaa yeelay waxay leeyihiin hal abuurro cajiib ah. waxyahaasi iyo dadkaba halkan iyo dalka dibaddiisa waxa ay leeyihiin ayna sameeyaan horumaro. waxaan nahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha deeq-bixiyayaasha. waxaan iskugu yeedhnaa deeq-bixiyayaasha kale si ay noogala shaqeeyaan dowladda. waxa kale oo aan isugu yeedhnaa deeq-bixiyayaasha kale si ay dhaqaalo iyo khayraadka aan iskugu geyno si aan u xalino dhibaatooyinka beeraha, kalluumaysiga, xoolaha, shaqo abuurka sida safiirku uu sheegay xataa dhinaca waxbarashada maxaa yeelay waxbarashadu waa furaha wax walba. That's what we're trying to do. And not just us but the other donors too. And one of the things that we can do as USAID or the US government is
we have a great convening power because we are one of the leading donors, so we can convene other donors and work together with the Somali government to do that. Convene other donors and say, let's pool our money, let's pool our resources, let's get together and work on this problem, be it agriculture, livestock, fisheries, or job creation, or as the ambassador mentioned, education. Education is key to everything. hay-adda kaalmooyinka Mareykanka ee USAID ayaa qayb ka ah shirkado badan oo ka shaqeeya dhinacyada xoolaha oo ay ka mid yihiin Irmaan, Beder iyo shirkadda kale ee la yiraahdo Som Milk kuwaas oo bixiya adeegyo badan.